kulan warbaahineed kana xarunta TV-ga qaranka ee Soomaaliland ay ku qabteen wasiiradaha arrimaha gudaha iyo dawladda علي محمد وران عدي علي سعيد ريغل ويوهليين وزير ku-xigeenada caafimaadka iyo shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan iyo Xasan Daahir Dhimbil ayaa waxa ay ka hadleen go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ku fasaxday in dalka ay ka soo degaan qaxoontiga Soomaaliyeed ee ka soo cararaya wadanka dhinaca biyaha badda aynu jaarka ka nahay ee Yemen. علي محمد وران عدي wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa sheegay in ay hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ka wada hadleen sidii dadkaas si loogu gudbin lahaa wadankaasi ay u dhasheen ee Soomaaliya in aanu wada kulanay hay'adihii caalamiga ah ama UN-ka ama UNHCR sidii loo maareyn lahaa dadka masaakiinta ah ee ka imanaya Yemen sidii wax loogu qaban lahaa sidii dalkooda loo gaarsiin lahaa sida awgeed waxaanu isla garanay in wixii kharashaada ee gaarsiinaya dalkoodii inay hay'adaha UNHCR iyo kuwa bini'aadamku ay bixiyaan bini'aadanimada xuseeya waliba dadka reer Soomaalilandna wixii ay gacan ka geysan karaan ay ka geystaan sida awgeed ayaa dawladdu go'aan ku gaadhay in dadkii aanu u fududeyno maadaama waxyaabihii markii hore aanu ku hakinay badankeedii la xaliyay. علي محمد وران عدي waxa uu sidoo kale maamulka Soomaaliya ku eedeeyay in ay siyaasadeeyeen arrimaha qaxoontiga ee ka soo degaya magaalada Berbera. taa waxaan leenahay way siyaasadeeyeen waxaan leenahay anagu caalamkuna wuu og yahay ummaduna way og tahay inaanu hay laba daro kala gaara inaan maamulka Soomaaliya xukuumin Berbera iyo Somaliland hase yeeshee markii aanu u helay duruufihii ay ku noolaan kar lahayn ama ay ku gudbi lahaayeen annaga aqbalay. علي سعيد ريغل wasiirka wasaaradda dibadejinta ee Soomaaliland ayaa ka hadlay sababaha ay Soomaaliland hore ugu xayirtay qaxoontiga ka soo degan magaalada Berbera. xukuumaddu waxay daba joogtay inay ogaato meel la ku hubsato qodobo badan oo ay ka mid yihiin in amniga sida wasiirku sheegay dadka qaxootiga ah maadaama ay dal dagaal ka dhacay ka yimaadeen oo burbur badan ka yimi markasta haddaad aragto dal burbur ka dhacay dad kastoo mashaakil wada ayaa dalalka deriska u gudbi kara qaxoontigana ku dhuuman kara taas waa qodobka labaadna waa dadkii Soomaaliya u dhasho markay ka soo degeen Berbera aanu aragnay maadaama anagu aanan haynin dawlad ahaan dhaqaale aanu ku kafayno hay'adihina ay ka yara gaabiyeen aanu aragnay halkaana in eebideen nooga iman karto dawladuna xaq bay u leedahay waana wax international adduunyada ka jira xuduudaheeda badda iyo bariga iyo cirkaba haddii shaki nabadgelyo soo galo iyo wax la midi inay hakin karto markay doontona joojin karto markay hubisana ay furi karto. ugu dambeyntiina wasiirada ayaa ka jawaabay su'aalo ay halkaasi ku weydiiyeen warbaahintu.